السلام عليكم أصحابتا سوء دوادا channel كان نجلس سقطين وهاي برودكشن كسوء دوادا فرشحة كنا مال الله ما أنتوا حن إدين ودنا ننعان كاس إدين كشيء دونتين مركز سوره إن شاء الله تعالى لسوا شو نازل xirfadaha iyo hibooyinka kala jaadka waa saamiga xaladaynta nolosha mid walbaana cid gaar ah ayaa saanyatay sumadeedana uga soconsan ku neeflaha kale waxayna sare u qaadaa milgada maamuuska iyo wax ku dheefka maanshiilka aadanaha inta uu ku nool yahay dunida guudkeeda farshaxanku wuxuu ka mid yahay meheradaha ay sida aadka tiknoolajiyadu cusub ee bannaanjooga uga dhigtay dabadeedna dadkii ku dhaadan jiray ay gacmaha ka laabteen daryeelna hadalkiisa oo daaduuf baa ku dhacay cid u xilqabtaan haba sheegin halabuuraha sawir gacmeedka alaaba waa haldoor hore loo shirrabay laguna kunya aqoonta uu leeyahay tabaha xarridda sawirro qurux iyo qotonba loogu xisho inta badanna waxaa laga dhexdheehdaa sumadaha Soomaalida iyo sooyaalkeeda u gaarka sida gaawaha boodaanta ableyda xeerada iyo fandhaalka iyo agabyo kale oo waa horay bulshada Soomaaliyeed ka abaaday waa hubaal in badan oo kamid ah kuwa uu garaadka iyo garashada roon barbaarta Soomaaliyeed inay ku duugan yihiin hindisiyaal iyo halabuuro qiimo badan badankood si ay tala ka wansiixday kuna dhiiran waayeen soo bandhigideeda waxaase jira kuwa kale oo fara ku tirisa oo ka dhex sheeganaynigood iyo beesha ay ku dhex nool yihiinba si wanaagsan uga faa'iideysta caqligii wanaagsan ay laga shinsan Soomaaliya abid maysan yeelan akaadimiyada aqoon dhaxalsiisa dadka jecel barashada noocyada kala duwan ee farshaxanka taasoo uu tun iyo curyaamin suwanba ku noqotay jiilal u jelqabay inay weelkooda u cushaan kalib keenista badaha farshaxanka burburkii iyo isbacsigii ka dhacay dalka ayaa indhaha ka riday dhammaan ibihii aqoonta ee uu dalku lahaa kana mid yahay farshaxanka firfircoonidii furfurnaanta caqliga ka soo maaxata ayaa dhalinyaradan u diiday wahanka iyo wahsiga kuwa badan lagu aafiyey kana hor istaagay horumarka nolosha iyaga oo la soo shirtaga wixii ay maskaxdooda ka soo tuujiyeen oo idil oo aan marna ka waabanayn dhagna aanan jalaq u siin mashaqada iyo guhaadda ay kala kulmi doonaan hawsha baaxadda leh ay qabanayaan inkastoo dalka iyo dadkuba colaadi ku raagtay ragguna rikaad ku joog yahay ayay haddana jiraan rag xusid mudan oo u tafaxitay inuusan marnaba farshaxanku booskiisii ka bixin welina yihiin kuwo ku tallamaya inay meel sare gaarsiiyeen aaminsan in dhallinyaradani yihiin kuwa ku sahayan hibo rabbaani ah balse nasiibku si uun uga hiiliyey maadaama aysan haysanin dawlad iyo dad ku gacan siiya horumarinta halabuurkooda taasoo ay u arkaan inay gacan ka geysan lahayd inay ku dhiiradaan in asaagooda kale ee dunida ku nool ay kula tartamaan badweynta farshaxanka ee lagu kala tagay xirfadaha iyo hibooyinka kala jaadka waa saamiga xaladaynta nolosha mid walbaana cid gaar ah ayaa saanyatay sumadeedana uga soconsan ku neeflaha kale waxayna sare u qaadaa milgada maamuuska iyo wax ku dheefka maanshiilka aadanaha inta uu ku nool yahay dunida guudkeeda farshaxanku wuxuu ka mid yahay meheradaha ay sida aadka tiknoolajiyadu cusub ee bannaanjooga uga dhigtay dabadeedna dadkii ku dhaadan jiray ay gacmaha ka laabteen daryeelna hadalkiisa oo daaduuf baa ku dhacay cid u xilqabtaan haba sheegin halabuuraha sawir gacmeedka alaaba waa haldoor hore loo shirrabay laguna kunya aqoonta uu leeyahay tabaha xarridda sawirro qurux iyo qotonba loogu xisho inta badanna waxaa laga dhexdheehdaa sumadaha Soomaalida iyo sooyaalkeeda u gaarka sida gaawaha boodaanta ableyda xeerada iyo fandhaalka iyo agabyo kale oo waa horay bulshada Soomaaliyeed ka abaaday waa hubaal in badan oo kamid ah kuwa uu garaadka iyo garashada roon barbaarta Soomaaliyeed inay ku duugan yihiin hindisiyaal iyo halabuuro qiimo badan badankood si ay tala ka wansiixday kuna dhiiran waayeen soo bandhigideeda waxaase jira kuwa kale oo fara ku tirisa oo ka dhex sheeganaynigood iyo beesha ay ku dhex nool yihiinba si wanaagsan uga faa'iideysta caqligii wanaagsan ay laga shinsan Soomaaliya abid maysan yeelan akaadimiyada aqoon dhaxalsiisa dadka jecel barashada noocyada kala duwan ee farshaxanka taasoo uu tun iyo curyaamin suwanba ku noqotay jiilal u jelqabay inay weelkooda u cushaan kalib keenista badaha farshaxanka burburkii iyo isbacsigii ka dhacay dalka ayaa indhaha